إن ولم بدي هاي حلبان كوقف عادي لبارو بابور كيسة وحد من كليه إن شابك كان لقى جمعها لقليه. كانوا حالة هاي أنا جابك اللي قعنت لقليه ورجابك يا جماعة أنا بيلي سنك فرت اللي قلنا لأن أمني وضنك إذا كان ضيع علي إن خفض حساب تميسين مالها مركب ضيلة إذا أمني السجاي حدنا وحافي عن إن إياه نفته اللي فكره وايو عدي طبعا حلوان لواتن حلوان لين لقليه وجوارد من الاستاجي مش اسمع كده عكرة هدي واحد عارية مسؤولية أصغر كروين إياه نفته اللي لقاه كوي على مدحتويد والله بارا مش مسؤولين الجوان إذا معارض محافظ عدب على كلهن صوبته ولا ليالو مهمة أنا عربنا وعتاه أو يستاجنوا فده ماشى مجرو ما الله لابتنا مله فده ماشى مجرو أو يستاجنوا دلك أنا جينا بتبادل دلك بتبادل وربع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتوا عنا ونكسن دمنا خير تشرفت لك وحنا جنا كنا بندر ميديا بندر بنادر وجن والله يمد الصومال تدواتيسن وحقه مقيا الله سبحانه وتعالى يعني برينا عد كستو دوم انه حقه مقام الله سبحانه وتعالى حقه سو صار انت كدب كسو دواده برنامج كيني رون شيء isku soo naqad wanaagsan walaalaha sharafta leh ku xirjana keen badan mid man bandar mid marka waxa idin leenahay haday maalin ku tahay maalin wanaagsan haday habeen ku tahay wanaagsan haday galab ku tahay galab wanaagsan insha Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala hadii ku amaaniya meel kasta aad joogtaan inta kadib barnaamijkayga caaba waxaan ku soo gudbinaa haduu Allah wada la idmo in xildhibaanadeena Soomaaliya ee baarlamaanka noo fadhiya magaciideena ku fadhiyaan oo maanta la rabay inay u doodaan mooshin laga keenay korontada laakiin markii barnaamijka la galay jawigu isbedelay isku bedelay nidaam nooc kale ah kaasoo ay u bedeleen nidaamka amniga ay u bedeleen ka ayaan rabaa inaan xogaa yar maanta sharaxaad badan ka bixi haduu Allah wada la idmo marka intaan barnaamijka aan u sii gudagalo markuu horeyso ila dhageysta xildhibaanadii oo maanta xanuun dareemay kadibna waan falanqeyn doonaa dhowr qofood ayaan ka soo qaadanaynaa walow aad u daneynay hal qofood codkiis aad ii raaligiliyay insha Allah ta'ala asaga waa idin gadaal marsiina waxaan soo hormarsiina dadka qaar ayaan soo hormarsiina laakiin asaga gadaal idin geena maadaama hadalkiis aad u qurux badnaa laakiin intaan sharaxaad badan idin gelin ila dhageysta insha Allah ta'ala xildhibaanadii oo ka doodayay amniga ka doodayay xalisooday leedahay iyadoo amniga la sugaay haddana waxa fiican in iyada nafteeda laga fikiro waayo haddii 10 xildhibaan 20 xildhibaan leen la geliyo oo gawaaridooda meel istaaji meeshaas maxaa ka dhici kara haddii wax ka dhacaanaya mas'uuliyadaas qaadi kara waa in iyada nafteeda loo ogaado in uu la mid yahay xildhibaanku qof caadi la baaro baabuurkiisa waxaa dhiman kaliya in jawaabkan laga gacmaha la geliyo sida ka dhacday xildhibaano badan qabsaday dagaalama qolihii nabadiidka madaafiicda madaxtooyada lagu soo garaaca guriga korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa ay haddana cid loo xiray iyo cid loo maxkamad loo soo taagay ma oo aan ahayn guddiya loo saaray maanta ka sii dambaysa inaad hoos u dhigaysaan waana ta keentay saaka in sharaf dhaca inta la arkay leego uu nagu dhaco idinka ayaa la idinka arkay idinka ismaamulay baabuur isku wareejay ciidan isku wareejay aqaladiina camirtay haddii masjidka qayli ka yeerto meel loo carara lama yaqaano mudanayaal arrinta marka maanta laga doodayo waxa waaye iskuma haysano hay-addan inay tahay hay-addii ugu sarreysay hay-adaha dowladda meeshii ugu darnayd maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaas waxaa dheer tacadiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan عدوي ليهين وحال سميه جاكبوينتيو كيلومتر أفر كيالا وضد جاي كيالا وحليه حلبانكا هل كان ديك عيدا مكو مريكا كاك لو وصلنا صوب حني أفر تاين سواقل وضد لو وصلنا كبدنا كجري صف دايرهم قلي سود قال الغبارة حلوانها سود يعني قاري كرفر قف كذا كجرا صوب حي فشرف دروا من القدوة حكى عسيني ناس ثاني وحلقة بدلوا وحتاين هذا وعدسي وحكى كمان دو قولنا كهذا وعسى تاعنا سان إنه حلقة بدلوا سان ومدو القاعدة دونه هتاك الفرقة تورنا هنا أنا وحنا نقل روا أمنيين إن أنا إلى السنة نقل روا لكن أنا أنت شو استاجنوا هالمالنا أو باورت لباري تاسينا كهذا المباهوا أنا هالمدواقبا حير هوسات كم دستورك حلوان ملبارة ماشي كجرت إلا بحياة قواباني صوبته إن لسبارة صحيح حقيقة runta markii laga hadlo war maxaa lagu baar way gurigaaga markaa soo bixis oo cabsanaysa baarlamaanku wuxuu ku yaalaa madaxtooyada
waa lagu baaraa meesha mas-uuliyiinaa joogaan iyadoo mucaarad iyo muxaafad cidba aan la kala ahayn sababtoo ah walaalayaalow muhiimada annaga arabnaa waxay tahay u istaagno fadha meeshaa ma jiro meel loo laabtana male fadha meeshaa ma jiro u istaagno dalka insha allahu tacaala intaa noo joogaan waxaan aad ugu qanxay walaalkayga xildhibaan xuseen cali xaaji oo ah xildhibaan geesi ah runtana u sheegay xildhibaanada waxay badankooda dhammaantooda ay dul istaageen xanuunkii taabtay midaa wuxuu yidhi maanta inaan anaga hadalno markii baasha gudaha noo soo gashay inaan hadalno ma ahayna horaa la raba inaan u hadalno waa runtiisoo taa asag runu ka sheegay laakiin waxa aan kasii jeclaystay hadalka uu ku hadlay xildhibaan xuseen cali xaaji oo ah xildhibaan xaqiiqata runta ka sheegay dareemaysidna inuu asaga naftiisa uu yahay dadka dhibka taabanaya uu yahay wuxuu yidhi yaan marna geesaha laisku xoqoqin waa laydin baaritaankana idinkaa keenay lianna amnigii idinka laydinka sugayay ayaa qaarkiin waxaad samayseen dhibka wuxuu ka imaanaya agtiina ayuu ka imaanaa maanta marka aan xildhibaanadan marka inay saa u doodaan ma munaasib bay ku ahayd mise munaasib kuma ahayn aniga ahaan waxaan leeyahay munaasib kuma ahayn lianna xildhibaanu maanta ma ahayn inaad maanta qayliso markay bahasha gudaha kugu soo gashay inaad maanta qayliso maba aheenba horaa lagaa rabay ilaa shacbi aad mas-uul u tahay hadda xildhibaan qaarkood waxay dhahayeen wasiirada anagaa soo dooranay askariga anagaa mas-uulka ah hebel anagaa mas-uulka ah waayahay intaas mas-uula ka tahay lama diidana laakiin shacbigii adiga kusoo doortay oo magaciis ku fadhiday ilan hadda wadankeena baarlamaanada dhammaan waxaa lagu fadhiya qabiila lagu fadhiya yani shucuuba iyo qabaa'ila idinka yaala alla subxana watacaala qur-aankiisu ku sheegay marka qabaa'ila lagu fadhiya qabaa'iladii meesha lagu fadhiyey qofkii aad matalaysay maalinta markii qarax ku dhacay oo la dilay oo guryaha laga kiciyey oo ciyaalkiisa la dilay oo asaga la kubsaday oo qaarkood lugta laga gooyey ma u hadleynin waxaa leeyahay bis barnaamijkaas waa laga hadli doonaa hadda waa laga hadli doonaa qaar dhahaye waa laga hadli doonaa dhowr jeer lagu soo celiyey laakiin maanta ma yeelin lianna fadhigooda biyaha ugu soo galay xalay barnaamij ka sameeyey oo aan sheegayay amniga Soomaaliya aan kaga hadlay haddana sidoo kale maanta baarlamaanka xanuunka iyo dareema albaabada lagu soo celiyey wax fiir xanuunka maanta waxaa eeg hadda بس وحا الباب كان لقيت عليا كليه مجلسين يوالدين بارك إن يرى على ده أو اسكح عريسين هنا ده معقول ما بقى هبة أنا يسلون ولا جوجي كرا ورخارة قريه هذا اللي جا عليه أو شقين هاي هذا مركز اللي عليه بيلكا وقوس على جري قدر بيلكا وقاعد نساء قارا جري أو بيلكا بأن هيل وقريه مركز صباح يا فتاح يا رزاق وصبيح جري أو وحبها هايسن الباب كلا أجيل كلا حراي من وهلين هذا ما أنت أذا لقوا عليي مركل لقوا عليي وحلا هذا يعني سيد اللي علين كلا وإن موشي أنك كنا وإن ساعينا مدحوين وأنا كدورتي الحلوان يعني يعني بابا وزير أنا كدورتي هذا غير نساء ما أنت إلما أدتك مساكين أهل الجماعة أم بك اللي جالسين أم الباب اللي حرنا جوارد اللي جوجنا وما هذا الهليني الله سبحانه وتعالى عادل واي ما لنا دي أديك الله سبحانه وتعالى عبت أستري مرلمات أستري مرسدحات عبت البنانكو الله سبحانه وتعالى صابن نجي قريهنا الذي هو كاني إن حد بحتى أنت إن حتى حفيزك أكو شقين سلا يدين كانوا مركو حقنا هذا الشيء ما بقى أهم مركو سومالويني إن وحن إذا لنا مركلا مرسدحات وحيدين لنا أنا وحربنا إن ودك النبض هذا أباهنا وحن بينت لها إيو قرص كروجان إيو إن غار كان برامجنا وحن سمينا أنا كهل دونا وسمينا دايم وحجر معهن وحن إذين شيء سومال إذين idinka iska leh idinka magaalada Muqdisho ku nool idinka magaalada Muqdisho la idinka amnigeeda inaad sugataan qoladan meesha fadhiyaan lacagta biilkooda kaliya fiirsadaan yaa been la idin sheegin qaar aad waxay dhaheen jawaabkeen in loo soo dhacan ka baqayna xildhibaan shariif la dhahayo oo banaadir ka soo jeeda meesha asiga si walaalkeena Xuseen Cali Xaaji sidoo qaabku hadla meeshii la rabo in uu hadlo ayuu wuxuu hadlay wuxuu yiri anaga waardiyahna waana albaara waa baaritaankaas raali ka mini hadda iska badaayay qaar waxa la taagay in jeebkeeda gacanta la geliyo war jeebkaaga ma ana wili sanka farta laga gelina laana amniga wadanka idinka dayacay in khafad xisaabtamaysan malaha marka maanta xisaabtika aad soo gudbiseen aniga waxaan aaminsanahay inaysan wax kama jiraan inuu yahay aaminsanahay laana hore loo rabo inaad qeylisaan xildhibaankii dhaayay aniga aan raacsanahay hore ayay ahayd in la qeyliyo oo hore barnaamijkan markii shacbiga dhibaatada la gaarsiinay هذا هاللين هذا مركي هذا اللي هو استاجي أو تري نقولي أو لو سوق ماذا والشغل اللي جا استاجي مركز درندنا شغل هذا حاجة عرير قل ربطه مركز ليس أنا سان عشان إنه معهم وإن الحساب تما وإن سان يلا وحلينا ولا ليال شعبي الصوماليين كل مالك هالله ما هيستان مالك عدي ودودان ما هيستان عدي ودعوة ما هيستان بل إلا الله سبحانه وتعالى أي أمر يقول
الله سبحانه وتعالى أي فرينت أدر صدان الله سبحانه وتعالى عادل فإنما يقول كن فيكون وحكستبا وحسمانا أهاو هانا وين أهانيسا مرك هدي إذنك أديدين إلى شعبنا أو شقيسان وأمريكا ودك أكشقيسان أو ولا مسؤولك أكتباتيس أكشقينيس دبكيس أو شقين دبك أكقاد أو شقين ويسي marka maanta ogo adeeg kugu socotaa bal waxa wili soo socotaa xafiiskii aad ku shaqeynaysan la imaana iska badaya hada madaxtooyada geeskeeda balwanaag derbiga lagu dhiftay laakiin marka dambe goosha ay ku imaanaysa guriyeena ay ku soo galaysa xafiisyada ku shaqeynaysan alladii kugu imaana kuraasan hadda ku fadhidaan alladii ku baabi'ina laana idinka dayacay oo waxaad ogaan weydeen mas'uuliyadda ama haysana ogaan weydeen qaar culimo idin kugu jiraan waxa ugu jira qaar caami idin ku jira waxba diinna waxba aan ka aqoon idinka diinta wax ka kasay qaar professor idin kugu jiraan dhamaantiin cid ka hadlaysa ma afkii baa juuqda gabay dhamaantood inkasta wuxuu leeyahay haddaad hadashad maxaa dhiba ku soo gaaray maxaa dhibka ku keenay biilka iska qaado gunada iska qaado mishaarka iska qaado yaani nolosha iska dibiro khalaas waa dhamad inta dhimatay ayaga Allah u naxariisto hala taagnaada bas inta dhimatay Allah u naxariisto aan taagnaano aniga nolosheena qabsano al umum maanta barnaamijkan waxa uu tala galay inaan reaction aan ka bixino baarlamaanka oo ka hadlay amni darada uu ka hadlay markii horena oo kursigiisa ka dheeraystay haddana sababta keentay amni inuu ka hadlana gurigiisa biyaha ugu soo galay marka waxaan leeyahay Soomaali weyn mar labaad mar saddexaad idinka la idinka rabaa inaad wadankiina aad sugataan idinka la idinka rabaa cidna idin maqna cilna idin maqna taagan tahay walaalayaal Soomaali weyn fariinteedii nin kasta soo gaaray waxaan rabaa inaad gaarsiisaan shacbiga la gaarsiyo xildhibaanada la gaarsiyo madaxweynaha la gaarsiyo ummadan idinka u dhaarateen idinka mas'uuliyadda u qaadeen hadii aad amwal iska dhigteen Allah subhanahu azza wa jalla amwal ma aha ilaahi ayaa idin arkooyo oo wax kasta aad sameysaan Allah ayaa idin la xisaabtamay masaakiintan oo mas'uulka u tihiin ama xilka u qaadeen ama yaani u dhaarateen ilaahi ayaa idinka jaasinaayo waatan hadda idin timaade waxaan idinka codsanayaa mar labaad mar saddexaad oo leeyahay كلي بلوني قدر بقى اللي دكوا دفتي مركز دمبنا وحلاقي يا هدي وحسبدل على الإمام ويسان قرينا يدكوا إمام سئلان معقول معها الله سبحانه وتعالى عادل وهي معقول معها إن ده مسكين أو جماضه أو الله جماضه أي دبتوذان وعلى درت الله جماضه هذا كان إسكر راح يستد معقول معها إله أي عادل أسجع يدك كلا صارنا أسجع أي أمدي سبب سنة أسجع مسؤول كا أسجع أنتي إذا كحال كده مسؤول هذه كلا كده مسؤولية هدي أجودن ويجني الله سبحانه وتعالى أدوينا وكوا عقاب آخرنا وكوا عقاب إن شاء الله تعالى برنامج كان وحاول تلقى إن أيدي حسوسنا حلبانة ذنا سومالية إن أدو هذا حنون كأيدين تارتي وسنهين هراء أيال ربنا وقالسان شعبي قوي شعبينهن وحلايا ولا ليال عندنا إذا مقنع علنا إذا مقدنا إذا كلا إذا كرب أمني إن أتسوتان ذلك دداشان الله سبحانه وتعالى عبسيس عبدستان وحن أمسنا إن ديب بدن هرمر أديار إنسان إن شاء الله تعالى برنامج كي عاوا أو تلقى الفلقينتي أم فلقين إن شركة ما أنت أم حلبانة ما أنت فرستان كي هلا ينأمني جوذا أنت ينكسو جبينا يا ولكن محمد حاج جميل كلا صه الله يدرك ندنا المقال نايمقن وإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.